بسم الله الرحمن الرحيم. فرتي عثمانية. fartii cismaaniyada waxaa la qoray sanadkii 1920 iyo sanadkii 1922 waxaana qoray Cusmaan Yuusuf Keenadiid. Cusmaan Yuusuf Keenadiid waxa uu ahaa gabya qoraa wax ka qoraa mawaadiic kala duwan oo inta badan xiriir la lahaayeen taariikhda Soomaalida sida buugaagta luqadda af Soomaaliga, xidigista iyo juqraafiga. fartan ka hor Soomaalidu waxay wax ku qori jireen farta Carabiga, taasoo wadatay dhibaatooyin lagala kulmo marka far Carabi lagu qoro af Soomaali. caqabadana waxay ahayd mid hortaagan markasta ragga isku dayaa inay farta Carabiga u adeegsadaan af Soomaaliga. mushkiladda ugu horeysa ee u baahan in la xalliyo waxay ahayd shaqalka af Soomaaliga oo ka kooban 5 shaqal oo u kala baxa gaab iyo dheer oo isku noqda 10 shaqal, iyo waliba in astaan loo helo xarfaha dha'da iyo ga'da oo labaduba aysan ku jirin farta Carabiga. horraantii qarnigan rag baa isku dayay inay qoraan far Soomaali, ragga oo aan qaarkood ku soo xusnay qaybtii koowaad ee farta wadaadka. xitaa ragga waxaa ka mid ahaa Captain J.S. King oo ahaa Ingiriis oo isku dayay inuu farta Carabiga ku qoro af Soomaaliga. dadaaladaas kulligood waxay u guuldaraysteen sidaan horey u soo sheegnay shaqalka Carabiga ah oo aan ku habboonayn afka Soomaaliga. Soomaalidu waxay u guuxaysay fikradda in bacdama Soomaalidu leedahay af u gaar ah in ay u baahan tahay in ay hesho far u gaar ah. Keenadiidna isaga oo taa ka duulayo ayuu alifay farta Cusmaaniyada. Cusmaan Yuusuf waxa uu bilaabay in farta lagu qoro dugsiyada deegaanka. markuu Talyaanigu ka warhelay arrinkaa waxa uu u micnaystay in ay ahayd dhaqdhaqaaq qowmiyadeed oo isaga ku lid ah, waxaana la soo xiray Cusmaan Yuusuf Keenadiid. taas waxay hakad gelisay qoridda far Soomaaliga muddo 20 sano ah. waxayse soo laba kaclaysay kadib dhalashadii xisbigii SYL ee la aasaasay 15 May sanadkii 1945. qodobka 5aad ee cahdiga aasaaska xisbiga SYL wuxuu qorayay in af Soomaaligu yahay afka rasmiga ah ee dalka iyo in farta Cusmaanidu ay tahay farta rasmiga ah. SYL ama sida loo yaqaan leegada waxay bilaabeen in ay ku faafiso farta Cusmaaniyada magaalada Muqdisho. Yaasiin Cismaan oo uu dhalay Cusmaan Yuusuf Keenadiid oo ahaa ninka sida aadka u faafiyey farta ayaa Muqdisho la keenay si uu bare uga noqdo halka. dugsiyo kale ayay SYL ka furtay magaalooyinka waaweyn ee dalka iyo magaalooyin dibadda ah sida Addis Ababa, Kenya, Zanzibar iyo Yemen. markaas ayay ahayd marka lagu magacaabay far Soomaali lana bedelay magacii hore loogu yaqaanay oo ahaa Al-Kitaaba Al-Cuthmaaniya. walow ay farta Cusmaaniyada taageero weyn haysatay, haddana waxaa ka hor yimid diidmo xoog leh hadday tahay in mustaqbalka af Soomaaligu noqdo afka rasmiga ah iyo far aan Carabi ahayn in la adeegsado. taasoo horseeday in 10 sano kadib SYL go'aansato in ay qodob ka dhigayay in farta Cusmaaniyadu tahay farta rasmiga ah ee dalka la tuuro, balse xitaa waxay leegada qaadatay in afka Carabiga ah uu yahay afka rasmiga ah ee dalka. rag uu ka mid ahaa Yaasiin Cismaan ayaa 5 Oktoobar sanadkii 1949 waxay dhiseen Jamciyadda Luqadda Soomaaliga iyo Suugaanta. jamciyadda markii hore waxay qayb ka ahayd SYL, laakiin markay SYL kala noqotay taageerada siyaasadeed gooni ayay isu taagtay waxayna sii waday faafinta farta. sanadkii 1957 jamciyaddu waxay bilowday in ay soo saarto joornaal uu magaciisu ahaa Sahan oo ka koobnaa 3 bog oo uu madax ka ahaa Xirsi Magan. waxaa halkaa ka sii socday Soomaalida dhexdeeda doodaha ku saabsan luqadda iyo farta dalku yeelan doono mustaqbalka. waaga gobollada waqooyi waxaa rasmi ahaa afka Ingiriiska, koonfurtana kan Talyaaniga. afka Carabigana wuu ka dhexeeyey labada qayb. isla sanadka ay Soomaalidu xurriyadda qaadatay dowladdii cusbayd, mooshinka magacaabidda guddiga far Soomaaliga ee koowaad sanadkii 1960 wuxuu ansixiyey baarlamaanka 16 Sebtembar sanadkii 1960. 18 Oktoobarna isla sanadkii 1960 waxaa ansixiyey golihii wasiirada, waxaana warqad uu soo saaray wasiirka waxbarashada 8 Diseembar
iyo 1 Janaayo isla sanadka lagu magacaabay guddi ka kooban 9 ruux. waxayna ahayd hawsha guddiga in ay baaris cilmiyeysan ku sameeyaan sida ugu fiican ee af Soomaaliga loo qori karo, iyaga oo dhan kasta ka fiirinaya, gaar ahaan dhanka farsamada. kadibna ay dib warbixin ugu soo celiyaan dowladda, iyaga oo tilmaamaya mid kasta oo ka mid ah faraha loo soo gudbiyey waxa ay ku fiican tahay iyo cilladaheeda, iyo inay tala ka bixiyaan tan ugu habboon ee uu dalku qaadan karo. ragga guddiga far Soomaaliga ee koowaad sanadkii 1960kii ka mid ahaa waxay kala ahaayeen Muuse Xaaji Ismaaciil Galaal, guddoomiye; Yaasiin Cismaan Yuusuf, xubin; Maxamuud Saalax Ladane, xubin; Dr. Ibraahim Xaashi, xubin; Khaliif Suudi, xubin; Mustafa Sheekh Xasan, xubin; Shire Jaamac, xubin; Xuseen Sheekh Axmed Kadare, xubin; Yuusuf Meegaag Samantar, xoghaye. waxaana lagu soo xulay raggaa tilmaamo ay ka mid ahaayeen: 1 in ay hore ugu howlanaayeen qoridda af Soomaaliga; 2 inay aqoon u leeyihiin dhismaha af Soomaaliga iyo inay ku xeel dheer yihiin suugaanta af Soomaaliga; 3 in xubnaha loo qaybiyo lahjadaha dalka looga hadlo; iyo 4 in loo oggolaado xubnaha iyo ururada taageera farta in laga talageliyo guddiga. guddiga waxaa la soo hordhigay 18 far oo isugu jiray faro xuruuftoodu ay tahay xuruuf ay Soomaalidu alifeen iyo xuruufo carabi ah, waxaana u yiil guddiga inay ka soo dhex doortaan farta noqon doonta tan rasmiga ah ee af Soomaaliga. dadka alifay farahaas waxay kala ahaayeen: Xuseen Sheekh Axmed Kadare oo alifay farta sanadkii 1952, Cabdulqaadir Cadde Muunye sanadkii 1961, Sheekh Cabdiraxmaan Qaadi sanadkii 1930, Cismaan Yuusuf Keenadiid 1920, Mustafa Sheekh Xasan 1951, Daa'uud Maxamed 1928, Cali Sheekh Cabdulaahi Qudbi 1952, Xuseen Xaashi Halaag 1960, Maxamed Jaamac Salaad 1960, Qaasim Hulowle 1960, Maxamuud Axmed Maxamed 1961, Xuseen Xaaji Ismaaciil Galaal 1952, Sheekh Axmed Cismaan 1960, Ibraahim Xasan iyo saaxiibadiis 1960, Maxamed Cabdi Khayre 1960, Shire Jaamac 1960, Cabdi Khayre Cawaale 1960, iyo Xaliimo Maxamed Cali sanadkii 1960. haddaan u soo noqdo farta Cusmaaniyada, waxaa halkaa ka sii socday faafinteeda. 1971kii waxaa la daabacay buug uu cinwaankiisu ahaa Afkeenna iyo Fartiisa. buugga waxa uu ka koobnaa 72 bog oo uu bogga u dambeeyo ku sawiran yahay mu'alifka farta Cusmaan Yuusuf Keenadiid. sifaadka farta Cusmaaniyada waa 1 farta Cusmaaniyadu waxay kaga duwan tahay fartii wadaadka. waxaa qoraalka laga bilaabaa bidixda. waa marka labaadee waxay ka kooban tahay 22 xaraf oo shibanayaal ah. 3 magacyada xarfaha waa sida kuwa carabiga. 4 8 shaqal iyo 2 xaraf oo ka tirsan shibanaha loona adeegsado shaqal ahaan oo kala ahaa xarafka wa oo loo adeegsado shaqalka dheer ee u, iyo xarafka ya oo loo adeegsado shaqalka dheer ee i, iyo 10 tiro oo cusub. af Soomaaligu waa af erayada loogu dhawaaqo codad kala gedisan ama tones waxa loo yaqaano, oo 4 ah oo aan ku astaysnayn ama ku tilmaanayn qoraalka. waxayna sheegaan tirada, jinsiga iyo xaaladda. waxaan halkan ku soo qaadanaynaa dhowr tusaale oo ah sida farta Cusmaaniyada wax loogu qoro. tusaalena waxaan ka dhiganaynaa maahmaahahan: aan wada hadalno, waa aan heshiino; run iyo been kala raad leh; uurjiif habartii ku gowracan; nin ciil qabaa lagama adkaan. intaana waxaan ku soo gabagabaynaynaa ka hadalka fartii Cusmaaniyada. muuqaalka kan xigana waxaan kaga hadli doonaa farihii kale ee Soomaalida.